waqti amnigu ka xun yahay nama soo marin deegaanku ma xasiloona habeen iyo maalin amnigeenna ayaan u cabsannaa hanti guri iyo mid gacanta lagu qaataba waan ka quusannay oo tugo ayaa jidkana noo taagan gurigiina noogu soo dhacda waa cabashada ugu badan ee shacabka degmada warta nabadda oo xaalad amni darro wajahaya iyagoo ku sheegay xaaladan mid aan degmada soo marin quusna ay ka joogaan sidii ay ugu sii noolaan lahaayeen degmada warta nabadda xuquuqda muwaadin lagu leeyahay waxaa ka mid ah in uu dowladdiisa ka noqdo canshuur bixiyo u hoggaansama waxaa xaqa loogu leeyahay si amniga deegaan iyo midka magaalaba loogu sugo canshuurtaas waxaase muuqata in shacabka degmada warta nabadda canshuurtoodiina la qaatay cadow habeen iyo maalin dhaca ay baylah u noqdeen iyagoo isweydiinaya halka ay ka baxeen maamulkii qaaday mas-uuliyadda degmada warta nabadda oo noqday maamul ka dhammaan la sugidda amniga guryahooda waxaa soo kordhiyay maadaama tuugada ay badan yihiin haddii dhacda in macnaha maalintii wax la dhacaayo habeenkii wax la dhacaayo marka in guryo la iskugu yimaado marka xaaladda meesha ugu xunaada mar haddii guryo la iskugu soo jabsanayo meesha ugu xunay mare xitaa waxaad dareemaysaa marka qaar waxaa arkaysaa in guri la jibiyey oo albaabkiisa tuudihiisa wixiisana haddaad fiiriso iyo caafimaad qabaan gurigiina waa la galay xal dhibaa ka dhacaa lagu leeyahay marka farsamo oo ala yaabta la yimaadeen nimanka warta nabadda magaca ay sidato iyo xaaladda xun ee maanta ka jirta maamulkii iswaafajin lahaa weli lama hayo waxaase lama huraan ah in shacabka degmadu ay aayahooda ka tashadaan mar haddii cidna u maqnayn ceelna u qodnayn